dowladda wadanka Turkiga waxa ay saldhigii ugu weynaa oo military ka furanaysa Soomaaliya waxa la sheegay in lagu tababari doono cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliyeed si ay u hantaan amniga guud ee dalka. Xasan Maxamed Awees wariyahayaga mar kale ayuu warbixin arintaas la xiriirta inoogu diyaariyay Muqdisho. jariidad ka soo baxda dalka Turkiga ayaa sheegtay in ay xukuumadda Ankara ay diyaarinayso saldhigii ugu weynaa ee military oo ay ka furanayso caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho bisha soo socota ee Abriil. si ay tababar ay ugu furto ciidanka qaranka Soomaaliyeed si ay u suurta gasho xoojinta xasiloonida Soomaaliya. jariidadan oo la yiraahdo Daily Sabah ayaa sheegtay in ciidamada Turkiga ay tababari doonaan ciidamada militariga Soomaaliya. saldhigaasi ay ciidamada ay ku tababari doonaan ayaa laga hirgelinayaa deegaanka Jazeera waxaana ku bixi doonta lacag gaaraysa $50 milyan oo dollarka Mareykanka waxaana ay qaadaa wax ku dhow 1,000 askari waxaana dhulka saldhigaasi laga furayo uu dhan yahay 400 oo hektar waxaana ku yaala 3 iskuul ay militarigu ay ka soo bixi doonaan waxaana la filayaa in uu yimaado madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxaana wafdigaasi ka mid ah oo madaxweynaha soo hogaami doona abaadulaha ciidamada Turkiga Qalusi Aka kuwaas oo Muqdisho ku soo wajahan bisha soo socota Abriil si ay uga qayb galaan xafladda furitaanka saldhigaasi military. sarkaal ka tirsan ciidanka midowga Yurub ee tababarka siinaya kuwa Soomaaliya ayaa sheegaya in wax muhiim ah ay ka qabteen tababarka la siinayo ciidamada Soomaaliya marka loo eego tan iyo burburkii dagaaladii sokeeye. Somali forces are in a developmental stage. I mean, it must be remembered that there was a situation for 20 years where Somalia was recognized and identified in the international lexicon as being a failed state. It is now a recovering state, so therefore the state of play with the Somali forces mirrors those 20 years and the new developing situation, but they are making significant progress. wasiirka difaaca Soomaaliya iyo taliyaasha ciidamada ayaa booqday saldhigga laga dhisay Jazeera. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay diyaar ay u noqon doonaan la wareegista amaanka dalka marka ay ka baxaan ciidamada AMISOM. Subscribe your like. Say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogtada ah.